السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka xiga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta wada joogno oo inkastoo sidii aad sheegteen mudooyin hore oo fara badan ballantu ay ahayd in maanta aan maartay ilaahay qadaro inaan soo nimaadno aad baan ugu faraxsanahay oo kala boganno waqti fiican ay soo helo arintaas hore ee ballanta ku saabsanayd ee gaaniga been sheegana oran kari maayo odayaasha been sheegana oran kari maayo qadar alle bay ku dhacday laakiin diyaar garow uu jiray in xaqan aan nimaadna aha marka odayaashu been ma sheegin muxuu ahaayay cilada xaga ka tibidna mas'uuliyadeeda anaga qaadanayna anaga idinka raali gelinayna muddadaas laba arrimood baa dhibaatada ahaa mid waxay ahayd haddii la yimaado laanqeyrta qasab waxa ah in xarshin iyo daroor iyo aagan hadda aan sii marino iyagana la maro marka safar dheer oo ilaa halkan lagu yimaado oo haddana inta la noqdo jijiga lagu noqdo haddana la soo hindiso mid kale oo xagga lagu tago malaha waxa ka fiican aan israacino ay ahayd marka aan israacinidii waqti loo waayay haddii hal maalin ahaan lahayd waa la soo boodi lahaa waa la iman lahaa laakiin dhinaca logistiga iyo dhinaca walba ka laga eego iyo dhinaca amniga inay habboon tahay mar in la israaciyaa la go'aamiyey israacintii baa ilaa hadda soo gaadhay idinka kaliyana runtii ma aha muddo xogaa ana koronihii baa isaguna dhib noqday oo waxa la yidhi lama socon karo ugu yaraan waxaan oran karnaa 4-5 bilood hore arimaha dib u dhigay safarka corona qayb ka ah marka musiibooyinka guud ee iska dhacay iyo iswaawaa kale bay ku timid odayaashuna mayna khaldamin annaguna maanan ujeedo xun ka lahan laakiin ilaahay baan qadarin maantaan isu nimid insha Allah wixii xilliga inaga baaqsadeen haddaan dhamaysan doonaa hadii la yiraahdo taa marka sida raali gelin buuxda shacabka laanqeyrta oo jecel lahay oo qadarinayo inaan siinaan jecel lahay marka madaxweynihiinii oo u simantihiin weeye cid gaar u sheegin kartaa ma jirto taa maskaxda ku haya ficil ahaanna waan ku muujin doonaa arrinta haddii la yidhaa waayo ficilka ka muhiimsan hadalka arrimaha la xidhiidha baahiyaha waa soo dhigteen aad baad ugu mahadsantihiin inaad wax qabsateen run ahaan arrintaasi waxay muujinaysaa xadaaradda iyo albaxnimada aagan ka jirta waa arrin aan rabno meelaha kale inay kaga daydaan shacabku inuu wax qabsado oo isagu isku tashado xumaan mehe waa wanaag oo iskuulaad u dhisto meelo fara badan oo shacabku iskuulaad loo dhiso oo iskuulka loo dhiso daryeel lagu kar leeyahay baa jira dhabahan ama maaragtay ilaaliya la leeyahay baa jira marka xaggaasna waxaalihii aad idinku bari lahaydeen ee wax qabsiga ahaa inaad ka barataan idinkana waxaalihii astaamaha dawladnimada ahaa ee in wixii ay dawladdu qabata ahayd ee ka baaqsatay dawladdu in la qabto inaan maaragtay ka shaqeyno ayay noqon doontaa haddii la yidhaa iskuulaadkaas aad dhisateen waxaa la ii sheegay badankoodu in standardka dugsiyada secondaryga ayna gaadhsiisanayn oo wax dadaal lagu dhisay ha ahaadaan laakiin librariyaashii iyo dayrarkii iyo wixii loo baahnaa laboratoriyaashii ayna lahayn marka xafiiska waxbarashadu nala socdaa wasiirka waan u sheegnay in shaqada ugu horeysa ay noqoto in standardkii loo baahnaa ee dugsiyada kale caadiga in la gaadhsiiyo hawshaas dhanka caafimaadka sidaa la sheegay cabdiraxmaan uu sheegay hal health center baa health centeradii sanadkan la bixiyay soo gaadhay degmada Xarshin oo socota wixii kale hadda soo baxay health center ee xafiiska caafimaadkuna in tixgelin la siiyo gaar ahaan Abubakar Axmed oo meel shacab badan ku nool yihiin kana fog halkan iyadana waa marin marti muhiim weeyaan waxaan maanta anagu halkan ku balan qaadaynaa in isla maantadan laga howlgalo oo ambulance cusub la idin keeno hadii la yiraahdo maadaama ambulance aad dalbateen iyadoo degmada mid hore la siiyay sidaan ogahay ambulansiyadii 130 ka ay loo soo iibiyay deegaanka mid ka mid la siiyay haddana baaxadda dhulkan leeyahay jid la'aanta baahida jirto la eegaya mid kale in la siiyo laanqeyrta la siiyo oo maantada aan ka howlgalo ayaan taana maartay ambalan qaadaynaa arrimaha ugu muhiimsan ee laakiin nolosha meeshan bedeli doona waa arrimaha la xiriira jidka weey waa jidka iyo leydka iyo biyaha saddexdaas shay haddii la helo meeshan waxay noqonaysaa meel nolol ka jirto oo wanaagsan bay noqonaysaa jidadka laanqeyrta meeshan la yidhaa waxaan aaminsanahay marka wadada hadda socota ee saaka la dhagax dhigay oo aan ballan qaadahayn shaqadeedii socoto marka taasi soo gaadhay ay dhamaato tan kale ee ka imanaysa Balligubadle oo iyadana custom waliba hadda la geeyay custom la geeyay oo immigration ku meelihii daraasaadka uu ku sameeyay lacagna loo hayo in intii ay dadku qabsadeen wax lagu daro oo ilaa iyo halkii idinku aad jeexdeen la gaarsiiyo labada wada istalowgi haday soo maraan meeshan customkiina halkan la keeno leydkiina la keeno waxaan aaminsanahay magaaladu inay heli doonto nafsi bax
oo ay noqon doonto xarun nolol fara badan ay ka jirto marka intaaba waa la sameynaya arrimaha networkiga si dhaqso ah in looga shaqeeyo waan ka howlgalaynaa gaar ahaan isgaarsiinta waan ognahay in aad iyo aad isgaarsiintu meelaha ay ku daciifka tahay ay kow ka tahay marka arrimaha horumarkana intaana waa inta hadda hordhacaan sheegayno arrinta la xidhiidha furka shacabku waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo mustaqbalka haddii aan sida aan rabno ay u hirgasho dadku ay arki doonaan inay maaragtay faa'iido dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid dhaqan inay leedahay la arki doono weeyaan sababtoo ah dadka in la kala qoqobo oo inay isu wareegaan la diido iyada laftigeedu siyaasad qalafsan bay ahayd oo dadka lagula dhaqmay bahay dadku inuu fursad helo halkan laanqeyrta ka tago hargeysa tago burco tago soo noqdo xaggan yimaado waxaaba yaratay cilladoo dhiba ma jirto waa isku dad dadkii marka arrintaas in la ballaadhiyo xukuumaddu diyaar bay u tahay dowladda federaalkuna diyaar bay u tahay regional integration isdhexgalka deegaanka oo dhan barnaamijka ay ra-iisul wasaaruhu uu qaatay dadka ugu badan ee ka faa'iidi doona waa Soomaali weeyaan wadooyinkan waaweyn in la sameeyo la rabo ee dhinac walba gelaya ee Somaliland gelaya ee Puntland gelaya ee Soomaaliyada hoose gelaya waa wadooyin mustaqbalka keeni doona in kobac dhaqaale oo ballaaran bulshada ay yeelato fursado badan oo shaqo ay ka soo baxaan nabadgelyo haddii la helo waxaan aaminsanahay midnimada la helo in deegaankan uu noqon doono deegaan isbedela haddana waan ku farxsanahay in mas'uuliyiin ka socda gobolka Hawda ay nala joogaan anagoo xiriirkanagu uu aad u wanaagsan yahay dowladda Somaliland aadna ugu farxsan in xiriirkaasi uu sii wanaagsanaado isagoo qayb ka ah regional integration-ka guud ee dalka laakiin anaga si gaar ah siyaasadda isu soo dhaweynta Soomaalida salka ay noogu hayso waan ku farxsanahay inay yimaadaan gudoomiyahana waxaan ku casuumeynaa officially inuu jijiga yimaado oo xukuumadda uu marti u noqdo waan soo dhaweynaynaa arrintaana gudoomiyaha gobolka Faafan Cabdixakiin inuu qaato oo gudoomiyaha uu maaragtay aan ku casuuno abwaan jiheeye oo isaguna duca aad iyo aad u qiimo badan halkan ka soo jeediyey duco international oo ka xoog weyn laanqeyrta gobolka ay ahayd aad iyo aad baan maaragtay abwaankana uu mahadnaqayaa ilaahay waxa uu sheegay runha nooga dhigo kaliya ma aha dhammaan mas'uuliyiinta dadka halkan jooga oo dhan way u baahan yihiin caafimaad iyo nabadgelyo ilaahay inuu maaragtay uu asturo inta way u baahan yihiin dhammaanteen ba ilaahay inuu ducada inoo aflixiyo yaan ku ducaysanaynaa degmooyin fara badan oo noocaas ah oo degmooyinkii hore ee qadiimiga ahaa weliba ahaa oo bilaa sabab iyagu halkooda ku taagan baa jira arrintaas in la xaliyo qasab weeyaan wada socodka deegaanka iyo wadajirka shacabka iyo Soomaalida laga sheekeynaya ku xiran tahay in cadaalad darooyinka dhacay hore inta dib loo eego wixii saxitaan la sameeyo laakiin qaabka lagu saxayana waa inuu noqdaa qaab aan keenaynin maadaama cid waliba ay la iman doonto su'aalo 99 degmo maalmihii u dambeysay xukuumadda hore tagaysay ay tiri waan ansixinay oo shacabkii qof walba meel uu la kuudo fayl haddii aan la samayn institutions hay'adihii waxaan kala saari lahaa haddii aan la samayn criteria cad oo wax lagu kala saarayo ama gobol ha noqdo ama degmo ha noqdo haddii ayna jirin criteria oo ay noqoto jacaylka iyo nacaybka madaxweynaha iyo ashkhas kooban inay go'aan lagu gaaro waxaan aasaynaa miinooyin qarxi doona oo ka halis badnaan doona kii hore la aasay marka waa in si degan looga fikiro waa in hogaamintu isu timaado waa in iyada oo la tixgelinayo cadaadarooyinkii hore dhacay oo isha lagu hayo la wada ogyahay haddana qaabka lagu saxaya ay noqoto qaab systemic oo institutional oo dawli oo macno leh oo aan cidna ayna abuse garin karin mustaqbalku ay noqoto political format noocaas ayuu deegaanku u baahan yahay taas waxa laga yaabaa inay 12 gol ka soo baxaan oo halka iminka ay kooytan ka yihiin ka sii kordhaan waxa laga yaabaa degmooyinku inay ka sii bataan inay hoos u dhacaan la isku celiya dhici karta marka criteria la sameeyo laakiin road mapka ama structure-kii administration lagu maamuli lahaa deegaankan sodonka soo socotay 40 kan soo socota waa in la yeelo waa in la sameeyo insha Allah hadii la yiraahdo xilli siyaasaddu sideen ka degan tahay oo doorashooyinka iyo wixii naga dhamaadeen oo mandate-ka dawladdu sideen ka adag yahay in hawsha sameeyno oo hadda ayna hawshaasi noqon mid xoogaga diidan isbedelku ay uga faa'iideystaan in dadka iskaga hor keenaan ayaa taas kaliya naga hortaagan garowshihii wuu jiraa waa la qaban doonaa insha Allah hadii la samirkii ka badnaaba waad soo samirteen imikana inaad samirtaan baan idinka codsanayaa waad mahadsantihiin mar kale soo dhaweynta iyo diyaar garowga iyo qalbi wanaagsananta aad muujiseen ilaahay ha naga dhigo kuwii wixii halkan ay ka sheegeen looga mahadnaqo oo sanadka kale aanu nimaadno aan la oran saasaad tirahdeen maxaa ka jira ilaahay ha naga dhigo kuwa waxa aan ka hadalay ka dhabeeya idinkuna kaalintiina shacab ka soo baxa anaga xukuumadda diyaar baan nahay dad isjecel oo Soomaaliyeed oo identity Soomaaliyeed abuurtay oo fikir qowmi Ethiopia dhexdeeda ka hirgeliyay
fursad baan u nahay inaan abuurno soomaalinimadii ka hirgeli weyday soomaaliyada weyn in halkan laga dhaliyo fursad baan u haysanaa shacabka deegaankan maadaama inagu tartanka aan ku jirnaa mid qoomiya u yahay inaan shacab Soomaaliyeed abuurno inaan afkaaraha qabiilka ururada wata la dagaalano inaan dhinac iska marino diyaar baan u nahay idinku diyaar u ahaada kaalintiina waa idinka sugayaa waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh